Assalaamu calaykum asxaabta qaaliga ku soo dhawaada channelkeena Taariikh Media. Muuqaalkan waxa aan kaga hadli doonaa filim lagu magacaabo Joker. Soo dhawaada oo la socda filimka. Filimka bilowgiisa waxaa la geynayaa 1981 iyadoo layna baray jilaa ku caan baxay ka qoslida dadka laguna magacaabo Arthur kaasoo kula noolaa hooyadii Benny magaalada Gotham oo ku caan ah rabshad iyo qalalaase dadkeeda inteeda badan ay yihiin sabool bilaa camal ah. Arthur waxa uu qabaa xanuun khalkhal dhanka maskaxda ah kaas oo ku sababaya xilliyo munaasib ah inuu iska qoslo waxaana uu ku xiran yahay xarunta daryeelka bulshada. Waxa dhacday maalin naftiisa weerar lagu soo qaado dhalinyaro gaangis ah goob uu ku sugnaa oo lagu magacaabi jiray Alice. Intaa kadib saaxiibkii oo ay wada shaqeeyaan ayaa waxa uu siiyay baaskool si uu naftiisa ugu difaaco marka uu la kulmo gaangis iyo dad san u dhibaateynaya. Waxaa dhacday in maalin uu Arthur la kulmo gabadh jaarkiisa ah oo lagu magacaabo Sophie waa hooyo haysata ilmo bila aabba ah wuxuuna ku casuumay xaflad uu ku soo bandhigi doono showgiisa soo socda. Maalin ayaa isagoo maad iyo qosol u sameynaya carruur yaryar cisbitaalka gudihiisa. Arthur waxa ka dhacaysa baaskooladii kadibna saaxiibkiisii siiyay baaskoolada ee isku difaac ku yiri wuxuu sheegayaa inaanu isagu siin ee Arthur isagu soo iibsaday kadibna maadaama Arthur shaqadii la yimi baaskoolad laga eryayaa. Maalin ayaa isagoo Arthur labiskiisii uu ku shaqeynayay ee uu ku jilayay xidhan waxa uu ku safrayaa tareenka kadibna waxa soo weeraraya 3 nin oo ganacsadayaal ah. 2 waa uu tooganaya halka ka saddexaadna si toos ah uga tagayo oo halka ku dilayo. Haddaba waxa dhaleecaynaya dilka loo geystay 3 nin ganacsadaha weyn ee billionaire-ka ah Thomas una tartamay jagada maayirnimo. Waxa uu sheegayaa in dadka horumarkooda ka xun dilna kula kacaan ay tahayna in tallaabo sharci laga qaado sida ninkan waalan ee jilaaga ah. Isla markiiba waxa bilaabanaya mudaharaadyo waaweyn oo lagaga soo horjeeda ganacsadayaasha Gotham iyagoo mudaharaadayaashu sitaan boorar iyo sawiraan uu ku xardhan yahay ninkan jilaaga ah ee dadka ka qosliya sawiraantiisa. Waxaana sheegayaa in kharashaadkii lagu bixin jiray social serviceska iyo adeegyada caafimaadka la joojiyay taasina ay keentay ninkan Arthur adeegyada caafimaad ee loo sameyn jiray uu meesha ka baxo. Gabadhii ay jaarka ahaayeen ee Sophie waxay ka qayb galaysaa showgii uu ku casuumay ee ka qabsoomay baarka balse waxa dhacaysa showgii in sidii loo baahnaa u dhicin waayo Arthur waxa ku imanaya xaalad qosol oo badan taas oo qosaysa meesha kana saaraysa kaftankii looga bartay inuu ka soo jeediyo stage-yada. Waxaana dhacaysa nin barnaamij soo jeediye ka ah show caan oo lagu magacaabo Mori inuu soo qaato video kooban oo ku maadeeyay ninkan lagu magacaabo Arthur. Intaa kadib waxa uu helayaa warqad hooyadii Benny u qortay ganacsadaha weyn ee Thomas iyadoo ku tilmaamaysa Arthur inuu isagu dhalay sifa bilaa sharciyana ku dhalay hooyadiisa saxdana ay tahay Berit xaqiiqda dhabta ahna ay tahay in laga qariyay. Kadib marka uu warqadii akhristo waxa uu si toos ah u tagayaa guriga Thomas halkaas oo uu kala kulmayo wiil uu dhalay oo lagu magacaabo Berusi. Kadibna waxa uu muran iyo dagaal la gelaya Alfred oo ah adeegaha qoyska kadibna meeshii uu iskaga soo cararaya waana uu ka soo baxsanayaa inta meesha lagu xidhin. Intaa kadib magaalada Gotham waxa uu soo gelaya 2 sarkaal oo dambi baarayaal ah kana tirsan waaxda booliska si ay u baaraan dilkii ka dhacay tareenka ee la xiriiray Arthur. Dhanka kale Arthur hooyadii ama gabadhii uu hooyadii u haystay waxa ka dhacaya stroke waxaase dhacaysa Arthur inuu si toos ah ula kulmo Thomas isagoo weydiinaya xaqiiqda waxa ay tahay. Thomas waxa uu diidayaa waxaanu sheegayaa inuu hooyadii Benny ahayn ee Ben iyo malawal ay uga sheekaysay. Kadib uu diidmada la kulmo waxa uu Arthur si toos ah u tagayaa isbitaalka gobolka Arco halkaas oo uu ka soo xaday faylka xaqiiqda hooyadii ku saabsan. Faylku waxa uu sheegayaa inaanay Benny dhalin balse ay ku soo korsatay. Sidaas ay tahay Benny waxay ku andacoonaysaa Thomas inuu awood dhaqaale iyo mid madaxeed u isticmaalay kuna bedelay xaqiiqda si uu meesha uga saaro inuu isagu wiilkan dhalay kuna diiwaangeliyo inay wiilkan Benny dhalin ee soo korsatay. Kadibna Arthur oo niyad jabsan oo kacsan ayaa waxa uu ku soo noqday goobtii uu ka deganaa ama dhismihii uu ka deganaa magaalada. Waxa aanu gelayaa Sophie gurigeedii iyada oo aan ogeyn. Sophie marka ay aragto khalkhalka ka muuqda Arthur way baqaysaa wayna cabsanaysaa waxaanay u sheegaysaa inuu guriga u faaruqiyo ee uu tago qaybtii uu ka deganaa. Xaqiiqda dhabta ahna waxa ay tahay
kulamadii hore ee uu la sameeyey Sofio inay ahaayeen qaar mala awaala oo uu naftiisa sawiranaysay waayo waxa uu qaba xanuun la yiraahdo delusion oo Thomas ku cadeynayay inay hooyadiina qabto xanuunkan oo kale. maalintii xigtay Arthur waxa uu sameeyay inuu hooyadii ku dhex dilay isbitaalka kuna ceejiyo. Arthur waxa lagu casuumayaa showga weyn ee Morini iyadoo ay ugu wacan tahay sida ay lama filaanka ah ee fidiyadiisii yareeraa comedy-ga ahaa ay caan ugu noqdeen. Arthur isagoo showgii u diyaar garoobaya gurigiisa waxa ku soo booqanaya labadii nin ay wada shaqeynayeen Randall iyo Garay. Randall waa uu dilayaa isagoo ka aargudanaya baaskooladii uu dhiibay ee uu ku inkiray halka uu gaari fasaxayo waayo sidii fiinada ee uu la dhaqmi jiray marka ay wada shaqeynayaan. Arthur oo ku lebisan labiskii maada kuna sii socday studio-ga ayaa waxa soo weeraraya laba askari oo dambi baarayaala. haddaba waxa dhacaysa in tareenka dhexdiisa kula kulmaan dad badan oo mudaharaadayaala waxaana dhacaysa labadii nin askarta ahaa mid ka mid qof mudaharaada ah si lama filaan u toogto. tiina waxa ay keenaysaa in xaaladii sii cakirmato oo dadkii isku dhex yaacaan buuqna ka dhasho waxaana imanaysa inuu Arthur ka faa'iideysto xaaladda oo uu ka baxsado askartii. Arthur waxa uu soo gaarayaa goobtii showga inta aanu showga si live ahna u bilaabmin. wuxuu si madadaalo iyo kaftan ku jirto isku baraya Mori taas oo xasuusinaysa fiidiyowgii gaagabna ee maada ahaa. isla sidaasuu Arthur uga soo muuqday stage-kii showga dadkiisa waxan iyo qaylo iyo soo dhaweyn ayay sameynayaan iyagoo ku faraxsan Arthur balse xaaladdu waxay isbedelaysaa markuu ka bilaabo kaftankiisii cabsi iyo waali ama kaaga iyo argagax ayaana ku dhacaya dadkii showga daawanayay iyo ninkii soo jeedinayayba. waxaanu Arthur isku dayayaa dilkii ka dhacay tareenka inuu ka dhaadhiciyo inay sababteeda ahayd inay si xun ula dhaqmaan bahdilaan oo qof xanuunsanaya ku tilmaamaan isla markaana ay taasi sababto in shaqadii laga eriyo Arthur. jilaanimadii uu wadayna hakisay isagoo ku sii adkaysanaya inuu saxsan yahay ayaa waxa uu tooganayaa ninkii wariyaha ahaa ee Mori waana la xirayaa kadibna mudaharaadyo ayaa ka dilaacaya magaalada Gotham. mid ka mid ah mudaharaadayaashii wuxuu weerarayaa qoyskii Thomas waxaanu halkaa ku dilayaa Thomas xaaskiisa laakiin wiilkii yaraa ee uu dhalay Thomas nolol ayuu kaga tegayaa. qaar ka mid ah mudaharaadayaashiina waxay soo kaxaysanayaan ambulance waxaana ku dhufanayaan gaarigii bilayska ee lagu waday Arthur iyagoo halkaa ku sii deynaya kuna fakinaya Arthurna stage-kii ayuu ka jaasaya kana ciyaaraya isagoo maad sameynaya. Arthur isagoo ku jira isbitaalka waxa uu ku qoslayaa naftiisa isagoo u sheegaya kaftankii maada ahaa waxaanu u sheegaya dhaqaatiirtii psychiatriga ahaa inaanay iyagu qaar fahmaya ahayn. ugu dambeyntiina dil ayuu kula kacaya waxaanu ka cararayaa isbitaalkii isagoo raadkiisu ku sawiran yahay dhiig. soo biir oo taabo subscribe si aad ula socoto muuqaalo kale oo xiiso leh sidoo kale muuqaalkana like ku dhaaf waanad ku mahadsan.